kulanti waxaan wanaagsan idilkiinba akhyaarta aanu hawada ka wada soconno meel joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena hadahan oo kale aynu isugu yimin jirnay ee garwaaqso barnaamijkeena toddobaadkan waxa marti inoogu ah injineer Siciid Saleebaan Siciid waa wiil aan daadiisu aad u weynayn isla markaasina ikhtiraacay in uu jiinkaasi aad arkaysaan oo bilaa baadrool ah ama bilaa naafata ah isagoo ka dhaliyay dab isagoo isticmaalaya waxyaabo badan ama dhowr macdanood oo la isku daray oo dalkeenu hodan ku yahay isaga ayaa inoo faahfaahin doonayana ka hor dhicine Siciido ugu horeyn waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijkeena garwaaqso ee toddobaadkan waan soo dhaweey honaad banooy waayahay waxaanu kaaga mahad celinaa saad nooga aqbashay in aanu waraysi halkan kaaga qaadno isla markaasina aad marti noogu noqoto barnaamijka garwaaqso Siciid sidee ayuu ku yimid maxaan dhahdaa farsamadan casriyeysan ee cilmiyeysan ee runtii dalkeena ku cusub sidee ay kugu dhalatay waxay ku dhalatay run ahaantii wax weeyaan de marka qofku oo de horta anu chemistry-gan in yara dhigtay laakiin haddana waxaan isku dayay bal inaan sameeyo wax qofka sabab dhaqaalin buu raadiyo horta ka jaamacad ka soo baxaya ka kale intuu dhaqaalin buu raadinaya marka already saan dhaqaalo helo wax cusubna u keeno ayaan run ahaantii iyo inta marka hore guriga un bal inuu shido laakiin waxaan ogaadayba inuu guriga ka weyn yahay wadda Soomaaliland iyo Soomaaliya Djibouti meel walba uu gaari karo marka run ahaantii wuxuu ku shaqeeyaa 4 macdanood isku jira waa emerald oo dhagaxshiil iyo dhobodheri afartan waxa jira waliba inaan ku tuso iyo qaabkay marka hore yihiin waa dhagax dhulka laga qaado ilaa electronic la gaarsiyo waa shaqo badan markii ugu horeysay aan runtii fikirkan keenay ee aan soo bandhigay waxay ahayd 2002 journalka Jamhuuriyadda ku soo baxay dadku waxay ugu dhaadeen malaha waxaan aaminsanay in aanad waxaan sameeynaado waliba ma aaminsanaynba laakiin imka waxaan aaminsanay in yar la soo aaminayo marka runtii tamartani waa tamar electronic ku shaqeysa macdan dalkuna u baahan intaanad bilaabin oo aanad actionkii aanad la imanin fikirintee in leegbad ka haysatay in maxaan idhahdaa aysan suuragal u noqonayso in dhagaxaanta la isku dardaray iyo macdanaha la isku daray inay leer keeni karto sidaynu arkayno in gruubkaasi baxayo oo ijiinkana istaarmayo fikir intee leegbad ka haysatay inay suuragal noqon karto sababta wax weeyaan de wixii way aadina imanka marka hore de maskaxda ku jireen laakiin imanka waabad arkayso ay kor yaalaan waxaan aaminsanahay fikirkan ka haysta waxa weeyaan inay noqonayso tamar weligeed joogaysa oo ma hatta wadamada kale laga kareyn karo si maanta Ethiopia ay Djibouti uga kareynayso leerka in maxay ahaatay hatta Soomaaliland leerka uga kareyn karto Ethiopia uga kareyn karto in Djibouti Puntland Soomaaliya saa ay wadi karto ayaan aaminsanahay oo noqdo wax sa Ethiopia naaska u shaqado kale in naas la shaqo kale noqon karo in aaminsan tamar fiicanay ku jiro way Siciid maxaa kugu kalifay in aad maxaan dhahdaa shaqada dheer iyo waqtiga dheer aad geliso curyahan cusub ama maxaan dhahdaa ikhtiraacan cusub ee aad maxaan dhahdaa samaysay waxay u kalifay in horta magac ka tago farsamada ka tago farsamadaasina gaar ah taaniga
marka xubeen markaad ummad dhan aad doonayso iyadoo bari u jeeda galbeed aad u rugto horta muddo dhan waxay ku qaadanaysaa energy badan baa ka baxay marka waxaan sababtan u sameeynaya waxa weeyaan inaan dhaqaale ka helo maxay tooy dalkaygana wax ugu qabto baahida electric ee dhibaatada in haystana laga baxo intaasaan u sameeyay way tan iyo bilowgii fikirkaaga imse sana ka soo wareegtay 14 sano 2002 ilaa imanka waa muddo dheer walaa waa PhD baad ku diyaarin kartaa wax laga yaabaa markaa inaad neer baahdo way Siciid yaa ka caawiyay markaynu eegno xagga cilmi ahaanba tiyode la oran karo ma sha Allah ilaahay aqliga ha ku barakeeye cilmiga iyo aqligu way iskaashadaan isla markaasina wax la taaban karo ayaa ay keenaan dunidana aynu joognana ragun baa u fikray waaw cidiga caawisay ma jirto dhaqaale ahaan horta fikir ahaan iyo maskax ahaan haddii cidiga caawiso halka mu fadhiila anigu oo sababtoo ah waxa weeye maanta ninkan aanu aqoontiisa ku shaqeysanayo deegama yeelay TV-gan aanu soo fariisto isna uu soo fariisan lahaa intiisa yar buu ka ridin lahaa marka cid cilmi iga caawisa ma jirto aqoon cid iga caawisa ma jirto dhaqaalana cid iga caawisa wali ma jirto boqorkina toonuu dhimay waliba dhaqaal ahaan baan u dhimay uma dhina maxay ahaatay fikir ahaan tahay way maxay faa'iido u keeni kartaa ummadda ama mujtamaca meeshay doonaan baha joogaane hadiiba sidan aad ugu tala gashay ay u suurta gasho ay u hirgasho ay miro dhasho okay waxa weyn wax kasta waa la tagayaa shalay tareenku wuxuu ahaa wax qof kula tifulo oo markuu waliba istaagay gidaar lagu hagaajiyo bireegna ma laha maantana waad ogtay sida masku socda waxa weyn wax walba waa la tagayaa farsamada markii hore waxa ka bilaabmata refload ninka saaska dhagaana waa ninka ugu horeeya ugu khatarsan marka waxaan already faa'iidada u leedahay Soomaaliland wax kamid ah electronic jaban in dadku helaan shacab oo ka yar danyarka iyo kataajikiis ku shii electronic u helaan waxa kale faa'iido u leedahay dalku inuu warshado yeesho maanta madaxweynuhu amar buu bixin lahaa inuu hebel oo aadna warshadi baastada keen hebel oo aadna warshadi kalluunka keen aadna sababtoo ah hadduu electronic noocan oo kala ah dalku lahaan lahaa jaban imka Ethiopia kala day madaxweynuhu amar bixiya inuu maxay tahay ninka ganacsadaha warshad u keeno waayo wuxuu hayaa electronic jaban maanta ninka warshad soo dejista $100 baa la oranayaa bishi waayo $100,000 iyo ajnabigii uu meesha keenay ma iska bixinaysaa warshadu may waa tii warshadii dib loo waray tii daqiiqdu meeday tii kala meeday waxa waa electronic la marka tamartan aan wada waxay sababaysaa in dalku warshado yeesho dadka danyartaana electronic helaan qof kastana baahidiisa xagga deegaanka xataa faa'iido u tahay iyo xagga shakhsi ahaanba oo deegaankina faa'iido u tahay oo waxa weeyaan dhirtii la goynayay wala joojinaya waayo qofku markuu $3 bishii bixinay amba $2 waxaan aaminsanahay inaanad u baahnaynba daqiiq iyo dhuxul iyo dambasiimina oo qofkaas digsigiisa ka soo iibsanayo oo cashada ku karsanayo oo qadada ku karsanayo Siciid jinkan waynagan arkayna amaba generator-kan wuxuu qaadaa 5 litir bal haddii aad isbarbar dhigto 5 litir inta ay reer hayn karto oo kale oo isticmaali karaan reerka ugu meel dhaxaadka dabcan reerooskooda mid maaha way kala dab badan yihiin oo kala dab qaadasho badan yihiin iyo macdantan adigu aad ka dhalinayso maxaan radaa tamarta haddii aad isbarbar dhigto oo aad dadka u sharaxdo waxa weeyaan horta farq weyn ayaa u dhaxeeya labadooda waxa weeyaan 5 litir waa 6 saacadood ku shaqeeya tamartan electronic ee kale ee macdantan wada waxa weeye nusuqiyaha yar waa marka rubac 4 meelood loo qaybiyo ayuu meel ka mid ah builder bisha dhan ku shaqeeya waayo way ka tamar badan tahay way ka awood badan tahay way ka adag tahay shidaalku waa biyada waa naqas waa barasha buu badan yahay oo maxay waxa ku badan hawada laakiin tan waxa ku badan tamarta markaas ay kala duwan yihiin marka hadii maanta imka macdantan imkaan ku shaqeynaa waxa ku jirta billion 7 shanta litirna oo 6 saacadood ay ku shidmayaan markaas koska u dhaxeeya waxa weeyaan nusuqiyahaas wuxuu igu taagay haddaan eego dib u soo eego waxaan gaarnay 5,000 marka 5,000 iyo $5 waxaan aaminsanahay $5 oo 6 saacadood shaqeynaysa iyo 5,000 oo shaqeynaysa bil deena isku dhaweyn baa inay u faa'iido badan tahay xagga tamarta way hadii aad noo sharaxdo waxaan arkay in halkan ay qalab badan ku yaalo oo dabcan dhalinaya tamartan aynu leedka ka dhalinayno ama korontada ka dhalinayno hadii aad noo sharaxdo wax weeyaan halkan aad arkaysaa waa masafiyo
masafiyadan inkastaanay dee dhamaystirnayn oo boqolkiiba 10 intii ugu adkeed imika maxay hatay dhimantay babta jiinka oo imika uu yahay dee inuu istarmo oo electronic keeno waxa kale la sugayaana uu yahay qalabkii kale la shaqeynayay waxa weeyaan kuwan waa solar system waxaan isticmaalnaa balaaga shidaalku qarxiya markuu carburetor shidaalka soo daayo ayaa uu balaaguna electronic ku kala kabacdu qarxa deetana barashad baa yeesho saas ku dhaqaaqay jiinku marka solartan waxay sameynaysaa hadii ifan la waayo in lagu qarxiyo balaaga wax lagu qarxiyo amba uu battery ka daciifo amba maxay heeday self aad weydo waxay noqonaysaa inay iyadu qarxiso imka naada wax weeyaan ma dhameysno anigan leer ku qarxinaya imka isaga marka qaraxan leerku qarxinaya wax weeyaan imka xataa isku mid ma noqon karaan markuu leerku ku qarxayay marka kale waayo waa macjuun adag oo ka awood badan oo kan battery-ga kale ma qarxin karo waxa qarxinaya lab wuxuu leeyahay leerku lab yidig marka waa nin gabadh marka nin ma qarxin kara gabadh ma qarxin karto way ashiyaadan kala duwan maxaan raahdaa macdanta iyo dhagaxaanta isugu jira hadii aad dadka u sharaxdo wax weeyaan ashiyaadan wax weeyaan kan waa imron waa marka uu imrona ka imaado birna aan noqon waa marka quraata ee uu tamarta electronic leeyahay qanad arkaysaa waa dhowdheri iyadoo wixii dhex kala un bay kaydisaa shucaaca ka soo baxa imronka ayaa kala ka bacdi gudaheeda ayuu ka dhistaa saldhig ka samaystaa saan shucaaca dibadda uga baxina iyadoo qabow iyo kuleel wixii kalaba way kaydisaa inkastoo labadii item kale ay iga maqan yihiin oo labadanu imka yaalaan oo maanta aan labadii kale aanan haynin waxa weeyaan waxay ku shaqeeyaan waa afarta uryaal laba imka halka yaalaan iyo laba kale dhagax shiil iyo ka kooban shay kale inta marka la isku daro 10 sano bacalmintu oo qaataa marka si dhaqaale loo helo ee degdeg loo sameeyayna 2 sano way qaadan kartaa laakiin marka dhaqaale loo helo marka aanu dhaqaale ma hayno 10 sano ay u qaaday waayahay bal haddii haddaba aynu dadka si toos ah intaynu guda galno aynu generatorkii istaarno aynu tusno groupkan inuu baxayo oo uu shaqeynayo haddaynu shaqada galno waa sax waan start karaa waayahay أنا سلف قطة inaanay waxba ku jirin oo shidaal ku jirin waan arkayaa soo dhaweyn kartaa adiga arkaya wax shidaal ku jiro generatorkii hadda ayaa la istaaray waa kan inoo sharaxay engineer Saciid waa kan inoo sharaxay waxyaabaha uu ka sameeyay waynagan arkaynaa groupka ku jira iyo leerka uu bixinayo ama dabka uu qaatay Saciid hadii aad dadka u sii sharaxdo way bulshada reer Somaliland hadiiba ay helaan horena waan ku soo weydiiyay oo ay suura gasho shirkadan maanta maxaan idhaahdaa dee aynu arkayno midhadhalkeedii aad curisay ama hal-abuurnimada aad la timid leerkii ku shaqeynayay maxaan idhaahdaa shidaalka faraha badan naga baxayay iyo tan aynu ka sameynayno waxyaabaha kala duwan ee dalkeenu hodanka ku yahay faa'iido intee leeg oo maxaan idhaahdaa wada kafaysa dalka oo dhan ayaa laga heli karaa waxa laga heli karaa horta waxa weeyaan faa'iido laga heli karaa waxa aad u leedahay horta wax ku already waxa weeyaan shidaalku dad baale marka adigu deeyno beertaadu ay ku baxdo galey iyo arbaqi kala soo baxdo iyo marka galey dibadda ka keensataa isku mid ma marka farqiga u dhaxeeya waxa weeyaan waa meel iyo waa wax la'aan iyo wax because waxa weeyaan imka macdantana imka ka sameynaya electronic way ka power badan tahay shidaalka
waa imka jinkan arkayso laba deynaba aan saaray because deynabada labada deynabaan saarayo haddana wuxuu isku dayayaa labada deynaba in dabani saddexaad ku daro jiido awood intuu ka qabo oo because way ka qarax badantay oo intuu hal shidaalku hal mar qarxo ay iyadu 10 qarxaysaa marka wax weeyaan already farqiga weyn u dhaxaya waxa weeyaan number 1 horta waa wax dalka yaala oo aan meel kale laga keenin waa ceel shidaal oo dawladdu ay markaa ka heshay dalkan weeyaan oo because waxa weeyaan dhagaxaantan iyo waxaan dhan dawladdu cashuur ka qaadanaysaa waxay naga dhamaanaya maaha miya dhagaxaantan iyo waxyaabahan kala duwan aad ka sameynaysaa yes hay wax dhamaanaya maaha hada intan meesha taalaba waa in aanu dadku yaqaanaan laakiin waxa isweydiinayaan sidii looga dhalan lahaa fikirkaas baa runaantii muddo dheer jiibtamay aanu milis liya xataa dalcada soo martay niba soo maray mid ilaahay ugu riday maskaxiisa mooyaan because waxa weeyaan sun baan ka saaray hay'ad baan ka saaray maxay ahayd toy mar waxay noqonayaan waxaan garanayn mar waxay noqonayaan dilaa mar waxay noqonayaan wax aan maxay ahayd toy aanad jini ismeela u saarta aanad garanayn you know had inkasta ay ka qoray buugdan laakiin haddana waxaan aaminsanahay maalintan soo bandhigo qaabka ay u shaqeynayaan waxani in dad fiican la yaabay doonaan intaad ku dhex jirtay kimikooyinkan aad isticmaalaysa iyo hayaanka dheeraad soo gashay wax dhibaato oo naftaada saameyn ballaaran ku yeeshay ma la kulantay energy baan hayaa imka already wax energy la raahun baa iga soo gaaray laakiin wax kale iima soo gaaray energy gaas qolata bas energy gaasna maalin iga dhacay you know isagoo istaaran markaa shucaac afu imka khatartii oo dhan gudihiisa gashay laakiin markaa khatartii dibadda taalay markaa maalintaana rabarka iga dhaco maalintaas iga soo gaaray rabadeen xirnaa ayuu ii raacay maantaas oo energy ku sameeyay inta kale wax iga soo gaaray meesha aduu ilaahay ugu badbaaday wayahay systemkan cusub ee electroniga lagaga dhalinayo maxaa la radaa macdanaha kala duwan wali dunida ma la isticmaalay ama qaaradan Afrika wali dalal isticmaalay oo sidan oo kale uga miro dhaliyay ma jiraan iyo South Africa iyo Nigeria labadaba isticmaalay arabna Masar iyo Kuwait Masar Iraq Libya horta saddexdana waan ku arkay YouTube-ka laakiin Afrika waxa isticmaal laba dal wana labada dalada gaaladu haystay horumar kale Somaliland bas saddex ku noqonaysa hadii ifan madaxweynaha iyo xukuumadda iyo golayaasha iyo wuxuu wax nala qabtaan weeyaan oo daan dhaqaalo way xaqii hadaynu u kacno dawladda wali cilmi la kulantay wasiirada hawshan qaabilsan waxaan jeclahay runaantii imka wasaaradda warshadaha kale waan tagay wasiiradina wadiga ogo saalagu helaa way aragtay you know waxana uma bilaamaba because waxa weeyaan ka aw remiibana dad xoolo dhaqataa dadku laakiin markuu imka maanta inaan ka iga dambeeyo aniga jiriga ka soo iga dambeeyo hadduu ifan uu yiraahdo waan fikirayaa waan ka ogolaanayaa because anaa fikir jiray marka maanta markuu abahay iyo awge iyo ka aw remi haayeen oo xoolo dhaqataa haayeen hadda tiraado maanta waxba sameynaya waa lagu la yaabay because wax weeyaan dadka imka aan tolkanaay igu dhow wax weeyaan ima aamsana inaan waxaan sameyn karo iyadoo ay wuxuu wax cad oo already imka maskax ka soo degay laakiin haddana ma aaminayaan ilaa wuxuu ay qarqarxaan oo you know shirkad weyn noqdaan marka waxaan ka hadlayaa xagga haddaan ka hadlo xukuumadda wasiirka warshado kale wasaaradda warshado kale waan tagay dhowr jeer markii dhowr week ku noqnoqday aan isweynay already waxay noqotay in haddana iska yimaado maxaad fariin halkan uga diraysaa guud ahaanba dawladda waxaan fariin u dirayaa wax weeyaan tamartan oo ah mid faa'iido ah dalka iyo dawladdaba wax nagala qabtaan oo because 10 dhiman ay bixiyaan nala garab istaagaan maalgeliyaal noo raadiyaan boqolkiina 20 ee dawladdu shar ahaan ku yeelato sida amnigeeda iyo warshada iyo meesha la dhigi lahayo intaba ay u qaban qaabiso waayo waxaan in dawladdu gacanta ku haysaa fiican turnaantii ma fiicnaba in dad shacab gacanta ku hayaan waayo runaantii waxaan doonayaa xataa inaan ka sameeyo qayb laboratory oo ku dhex taalo warshada gudaheeda oo dhagxaanta lagu baaro inay la shaqeeyaan niman saynisyahaniina oo dalkeena jooga oo dhalinyara oo gidaaradaas ka fadhiyo chemistry meedhana amba biology amba in maxay tahay qoladan macdanta kala oo geology dadkaas oo dhan baad urursanaysaa team baad sameynaysaa noocaas ka bacdi seeski baash way dhisantay iyaguna halkaas ma ka sii wadayaan marka waxa laga yaabaa inay warshada noqoto warshada ugu dhaqaalaha badan leh dawladda Soomaaliya
sideed u aragtaa amase weli ma lagugu yeedhaa saynisyahankii ugu horreeyay somalilan sidan oo kale wax ikhtiraca haddii ay taasi jirto anigaaba caawa ku leh sidee adiyaad isku aragtaa adiga laftarkaagu weli riin baan arkaa horta runtii mar haddaanad wixii bad aanad dheefteediiba aanad weli arkin oo dhibaataduna adiga ku haysto weliba ma arka dee laakiin insha allah waan gaari doona kale maalin kamid mustaqbalka soo socda hawshan aad ku jirtaa ma yara maxaa kuu qorshaysan amabase maxaad ku riyootaa runtii wax weeyaan dee waxaad ku riyoonaysaa inkastoo dee imika dee nin weyn baan ahay 35 madaxa jaray laakiin hadda waxaan aaminsanahay inay 15 sano oo dambe aan sii jiiday baash markaa kulliba markay miro dhasho mar retire noqdayba ayaan aaminsanahay waxaa jira shirkado private oo xagga leydhka waxaa jira shirkado waaweyn kuwaas iyagu cid ma iska aragteen weli ma la soo qaaday oo dabcan ma iibgeysay fikirkaagan runtii dee miro dhalay weli ma iibgeysay waa daalbarkaado kale waan iska aragnay injineeradooda waan isku aragnay tilsoomo kale waxa weeyaan dee waxyaaba aan ka wada hadalnay injineeradooda way igu yimaadeen halkan waxay igu yidhaahdeen 10% dhiman markaad anu shirkadu xiibstaan ay yidhaahdeen ayaan nahay oo dee maxay atooy wax mashiin dhamaystiran baan iibsanaa marka wax investment horta kuma siin karno fikirkaagana uu naanfacay anaga 10% kan dhiman markaad soo hagaajiso noo keen wan isla eegnaa injineeradan u direynaa kabacdi waan iibsanaa way 10 kan adiga ka dhiman ma farsamo ahaan bay u dhiman yihiin mise waxay u dhiman yihiin dhaqaale ahaan waxay u dhiman yihiin dhaqaale ahaan farsamo ahaan uma dhina dhaqaale ahaan bay u dhiman yihiin qiimooguna hadduu ugu bato $2,000 kama badanayo haddii rikoorka la jabiyo 2000 kama badanayo inta dhaqaale ahaan weliba waxaan jeclay qof maalqabeena oo ila sheera oo aan shares iyo 10% wixii marka la iibiyo wixii ka soo baxa 10% haddaan $5 milyan ku iibiyo haddaan $30 milyan ku iibiyo inuu 10% siiyo oo dee maalqabeena oo dee isna 2000 gaasi bixiyo waayahay haddiiba aad imika hesho waxaa kaa dhiman ma jirtaa structure plan oo kuu qorshaysan warshada mustaqbalku sida ay noqon doonto goobta la dhigi doono sida ay noqon doonto fikirkaasi wuu jiraa waxa weeyaan horta meel lama degaana la geenayo warshada waxa loo qodayaa goran 20 mitir dhulka ay hoos loo qodayaa waa marka dhaqaale loo helo 100 milyan wax ku dhow marka waxa weeyaan dhul hoos loo qodayaa mashiinada halkaas la dhigaya sabadaha la shubayo waa macjuuno iyo amuudo kala kankaana lagu shubay kabacdi warshada waxa laga soo bilaabay dhulka 30 mitir baa hoos loo qodayaa dhulka halkaas ay warshada loo dhigayaa si haddii qarax yimaado amba uu shucaacan ay ku shaqaynaysaa uu dee dhibaato keeno inuu dhulka dib u galo farshan ahaan uu dib u galo oo aanay wax dhibaataan keenin dhulka la geenayaana waa dhul se berbero oo kale xeebaheeda oo kale meel kulul ayaa loo baahan in laga dhiso warshada meel kulul yes waayahay dowladda jamhuuriyadda somalilan madaxdeeda oo dabcan ugu sarreeyo madaxweynuhu maxaa fariinanu halkan ka gaarsiinaa sidoo kale mujtamaca reer somalilan ee maalqabeenada ah iyaga laftarkooga fariinta aad maanta halkan u dirayso ee aad ugaga faa'iideysanaysaa maxay tahay Siciido waxaan kaga faa'iideysanayaa madaxweynuhu bal inuu ila eego fikirkan waxa weeyaan bahda TV-gu imka wada timaadeen te fikirka waad arkaysaan waxaad igu timaadeen waa fikir kan oo aad aragteen qiimaha u leeyahay in la ila eego fikirka oo sinaayo nala dhaxdhigo oo uu nala eego oo uu noqdo taariikh uu ka tago oo madaxweynaha ka sii dambeeyana uu sii wado oo saa warshadu iyo electronic oo ay u noqdaan mid la isku sii dhiibo marka maanta anu waxaan u baahanahay inkastoo aanu kulmiyaan guriday oo aanu foodka aanu kulmiyo guridayba waxaan doonayaa in madaxweynuhu na soo booqdo haddaanu soo booqanayna anagu u tagno de arrinkan wax nagala qabto waxaan haynana waa wax cad oo shaqeynaya oo sida de kamarada imka adiga duubaysaan oo kale u shaqeynaya oo idinku baad arki kartaan oo imka aad arkayseen oo de shaqeynaya gaarigu ma istaan karo haddii uu santi oo batroolkiisu dhamaado baabuurku ma istaan karo waa mamnuuc kana adiga arkayo de pressure box socdaaba marka intaas aan wax loo dhigaa baan jirin bade marka waxaan jeclahay de madaxweynuhu inuu de wax nagala qabto arkan
qolada kale iyaguna maalqabeennada ah maalqabeennada waxa weeyaan already cidii maal gashanaysa de waxaan aaminsanahay de fikirkan in la qaadanayso horta dadkii boqolkiiba mid baan iska fahnay marka mid maalqabeena boqolkaa hadduu dee mid uu noqdo mid ka mid a un isfahmi laakiin waxaan aaminsanahay cid alaalay ciddii ka rabsiinaysaba welcome daawadayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii toddobaadkan ee garwaaqso oo dabcan uu marti inuugu ahaa Siciid Saleebaan Geele waa injineerka ikhtiraacay hawshan aynu maanta gudi ka sheekeynaynay waxaan si mugle oo miisaanla ugu mahadnaqayaa kamaramaanka iyo farsamayaqaanka isku soo dubariday barnaamijka waa Maxamed Deeq Axmed Cali waxa kale oo aan si weyn ugu mahadnaqayaa guud ahaanba daawadayaasha barnaamijka garwaaqso iyo dabcan inta daawanaysa oo aan leeyahay aad baan idinka mahad celinaynaa waqtigiina qaaliga ee aad na siiseen in aad kula socotaan barnaamijkan daawadayaal tan iyo intaynu usbuuca dambe gaari doono haddii Allah awoodda la ogolaado waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad geliyo Sociedade na